هدانا الدولة نملس كلورين هوي دارود ما هيسن كرو واسي صح وشيء جنابه ها xildhibaan Abdiraxmaan Gurey waxaad soo booqatay hotelka Airport ee magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin xildhibaano maanta loo diiday inay Garowe aadaan maxaad halkan ka soo doontayna waa sax waaye xildhibaan saaxiibaday ah oo kuligeyga ah ayaa laba maalmood lagu haystaa meeshan maanta ayaan soo salaamay aad baan ugu xumahay waxa aan kala kulmay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin xildhibaanada saaxiibaday waa waxaan ka xunahay inay afduub maanta ugu xireen magaalada Muqdisho xildhibaano Soomaaliyeed oo lagu haysto markii horena shaqadooda loo diiday markii dambena guriyahooda loo diiday inay aad baan ugu xunahay marka saaxiibadan soo booqday hadda ayaan ka soo baxay waa soo xal wareysanay anigoo wakiil ka ah xildhibaanada Soomaaliyeed anigoo si qaas ah wakiil uga ah beesha Hawiye 61 beesha Hawiye waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed inaan ka xunnahay in xildhibaano saaxiibadeena ka yimid in maanta loo diido guriyahoodii shalayna shaqadooda loo diido maanta guriyahooda loo diido amarkan yaa bixiyaa la leeyahay waxaan isleeyahay fil Soomaaliya bixis maxay ka damacsan tahay waxay ka damacsan tahay waxaan suuragal ahayn dastuur qasal lagu maalmarin karo waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxayna heshiis ku ahayn dalkan kama socon karaan dastuurna xoog lagu maalmarin karo ilaa xalay xildhibaanada Soomaaliyeed qaarna lacag lagu bixinay qaarna afduub lagu haystaa aad ugu xunaa kamid yaa xaqiijinaya in habeenkii xalay lacag caddahay xildhibaanada la soo hadlay oo bareys loo gaaray oo lacag badan loo gaaray iyo kuwa lacag la siiba وعدها لما كوا صاحبنا وحلوانه ما حد حكم مقشة ولا عقل لا أنت لا جاري وكل دوينهن حلوانه قار باشن بقول لكم لو جاري قار لا بقول لو جاري قار بقول لو جاري ها ولا بيعنا حلا حلا الشل حلوانه أنت لقي لي وحال روا إن دستور كحقوق لهم المرسي يكررشن يلعق لهم المرسي آد ما وحنا أرتلوا حلوان لو جاري جيرو صاحب كيانو به حلوانه واحد جرا طبعا ديجانا هن حد سيدا شيخ حلوانه الهبية وبديكوا أركتيها مدحونا حسن شيخ محمود adigu xildhibaanada madaxweyne xasan sheekh beesha Hawiye ku aragtida qayb ka mid tiitoma adeero anaga waa madaxweyne xasan macalinka madaxweyneeni waay madaxweyne Soomaaliya waay laakiin ma in qalad uu raaci karo beeshaan aan ka dhalanayna qalad kuma raaci karto shalay nin baa joogay meesha waa ogtahay xaaladda uu ku sugnaa iyo sida mataqaana markuu talaabo qaldan qaado lagu soo horjeestay madaxweynuhu hadduu talaabo qaldan qaado waxaan leenahay waa in laga soo horjeestaa oo qabiilkan laftiisa uu ka soo horjeestaan leenahay aniga waxaan leeyahay madaxweynuhu dastuur xoog lagu marin karo xildhibaanada saaxiibada shalayna shaqadoodii loo diiday maanta guriyahooda loo diiday waxa lagu haystaa afduub saxna maaha maanta annagoo ku jirna qarniga 12aad 2026 in xildhibaano saaxiibadana federaal xildhibaanka xasaanadu leeyahay nimankii ilaalin lahaa xasaanada inay maanta xasaanadu ku xadgudbaan in xildhibaano magaalada Muqdisho lagu haysto inay afduub ku jiraan inay shalayna shaqada loo diiday maanta guriyahooda loo diido waana wax lagu xisaabtami doono ummadda Soomaaliyeed hadaynan jirin xasaanad iyo xildhibaanimana Soomaali qabiil waay waxay afduubeen fil Soomaali afduubeen laguma hadaana xasaanad iyo dowladda la wardiinin laguma haysan karo Soomaali qabiil waay qabiil ma haysan karo qabiil adil aadana ما هايسن كره قبيل البنات إلى 4 الله هنا اللي سوق المريم ما حكي وركاس هينا مقلي لكن صورة قل مكلتها هاي ننحل لبانا شقيس لو ديدي حدا أفضل وهايستون بعد دستور مال مرناي ما اللي حكرت هذا صورة قل ما هذا الدول نمجرين الصومال قبيل ولا قبيل شو عيدونا لأن الحكم هايسن كرو بدنا نكيم لو قبيل قسماي نكيم لو قبيل أنا ولا قبيل أنا هاي قبيل ما هايسن كر هذا الدول نمجرين